السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي wanaagsan meel kasta joogtaan insha Allah muuqaalkan waxaynu ku sharaxi doonaa waxa loo yaqaan qumanka ama tonsillitis, waxyaabaha sababi kara qumanka ama se waxyaabaha kicin kara qumanka, calaamadaha lagu garto qumanka iyo waliba dadka u nugul inuu ku dhaco qumanka iyo qaabka loo daaweeyo ama sida loola tacaalo qofka qaba qumanka. ugu horeyn haddii aynu qeexno qumanka ama tonsillitis, qumanka waa qanjirada ku yaala xagga dambe ee cunaha, waana laba xabo oo ku kala yaala labada dacal ee dambe ee dhuunta. waxay ka qayb qaataan inay ka hortagaan cudurrada soo weeraraya difaaca jirka, sidoo kale waxay ka hortagaan jirka inuu ku dhaco caabuqyo daran oo ay sababi karaan ilma aragtiyada bakteeriyada ama fayraska. sidoo kale qumanka waa difaaca ugu horeeya ee jirka intiisa kale. qumanka wuxuu ku dhici karaa amase waxa u nugul qof walba, qof yar iyo qof weynba, walow ay u badan yihiin qumanka caruurta yaryar xilliyada iskuulka ama dugsiyada ku jira. haddaba maxaa sababi kara qumanka amase maxaa kicin kara qumanka? qumanka waxaa sababi kara ama kicin kara qofka inuu ku dhaco hargab amase ilmahaba inuu ku dhaco hargabkaas oo aanan la daaweynin oo waqti badan soo laalaabta. kadib waxaa dhacaya in fayraska hargabka keenay uu u gudbo qumanka, dabadeedna uu waxyeeleeyo qumanka, sidaasna qofkii ama ilmihii uu si fudud ku qaado xanuunkan. sidoo kale waxaa keeni kara bakteeriyada loo yaqaan streptococcal bacteria oo dhaawac adag u geysata qumanka, sidaasna uu qofku markaasi ku qaado xanuunkan si fudud ayaa loo kala qaadi karaa, waxaana inta badan ay kala qaadaan caruurta xilliga iskuulka ku jirta ama dugsiyada markay isla ciyaarayaan oo kale uu jeermiskii markaasi ilmaha qaba uu u gudbin karo ilmaha kale. xanuunkan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood, mid waxaa loo yaqaanaa acute tonsillitis, midna waa chronic tonsillitis. acute tonsillitis waa mid waqti yar ama waqti kooban markaasi qofka hayn kara, kadibna qofka uu haddii uu iska daaweeyo uu ka tagi kara. midna waa mid waqti dheer soo laalaabto oo markaasi daba dheeraada sanado badanna markaasi qofka haya. haddaba calaamadaha lagu garan karo qumanka ama waxyaabaha lagu ogaan karo qofka inuu markaasi hayo quman waxaa kamid ah kow, qofka inuu isku arko dhuunta oo xanuunta, weliba xanuun daran uu ka dareemo dhuunta, xagga cuntada laqida oo dhibta, inuu ka dareemo barar xagga dhuunta ah, qandho fara badan oo zaaida oo joogto uu dareemayo, inuu sidoo kale dareemo qoorta inay xanuunayso, marmar inuu isku arko codka oo dhibaya ama codka oo markaasi marba nooc ka noqonaya. sidoo kale dhuunta inuu ka dareemo meesha ay kaga taalo qumanka inuu ka dareemo cadaan, waxyaabo yaryar oo cadaan ama jaallo noqda. sidoo kale qofka inuu isku arko dhaxan fara badan. sidoo kale waxaa dhici karta qofka haddii uu in badan isku fiirsado qumanka uusan iska daaweyn inuu dareemo xagga naqaska oo ku dhagayo mararka qaar, iyo sidoo kale qoorta oo xanuunaysa. haddaba sidee loola tacaali karaa ama loo daaweyn karaa qofka qaba caabuqan qumanka? ugu horeyn waxaa muhiima inaad la xiriirtid dhakhtarka kuugu dhow si loo ogaado sababta keentay xanuunkani ama caabuqani qumanka. haddii ilmaha yar ama qofka weynba xanuunkan uu u keenay fayraska hargabka, waa in fayraska hargabka uu keenay marka hore qofka laga daaweeya ama ilmahaba laga daweeyaa oo fayraskaasi hargabka la socday jirka laga saaraa. kadibna dhakhtarku wuxuu ku sameyn doonaa baaritaan lagu ogaanayo bakteeriyada keentay xanuunkani qumanka. kadib dhakhtarku wuxuu ku qori doonaa daawada ku habboon bakteeriyadaasi kana adag. haddaba haddii qofka uu daawo in badan qaato ama daawooyin badan loo soo qoro, daawooyinkaasna uu qaadanayo muddo fara badan, xanuunkiina uu kusoo laalaabanaya ama xanuunkii uu noqdo mid markaasi daba dheeraada ama caabuqiiba uu ku daba dheeraado mar walba oo sanadkii in ka badan 5 jeer oo kale uu isku arko xanuunkii ama uu kusoo laalaabto, waxaa muhiima markaasi in loo gudbo qodobka labaad oo ah xagga qaliinka. sababtoo ah caabuqan qumanka laba siyaabood ayaa loo daaweeyaa. kow waa in qofka uu qaato kaniiniyaal, labana qofka waa inuu sameeyo qaliin. marka haddii kaniiniyaashii ay waxba kaa tari waayeen oo daawadii dhakhtarku uu kuu soo qoray ay haba yaraatay waxba isbedela aad ka dareemi weyday, qofkiina xanuunkii uu zaaid u dareemayo oo xanuunkii uu kusoo laalaabanayo wax ka badan 5 jeer ilaa sanadkii, waxaa muhiima inuu markaasi fiiriyo xagga qaliinka oo markaasi lagu daaweeyo qaliinkaasna waxaa loo yaqaanaa tonsillectomy oo waxaa la saarayaa dhammaan qumanka. haddaba maxaa dhici kara haddii qofka uu daawadii uu qaatayna aysan waxba ka tarin, qaliinkiina uu iska daayo, maxaa ku dhici kara qofkii?
kow qofkii waxaa ku dhici kara inuu hurdadii waayo oo xanuunkaas uu dareemayo awgeed inay hurdadii ka tagto. laba waxaa ku dhici kara qofka inuu naqaskii ku dhago. saddex qofka waxaa ku dhici kara hadduu iska daaweyn waayo xanuunkaasi amase haddii uu daawadiiba qaatay daawadiina wax ka tiri weyday qaliinkiina uusan sameyn oo qaliinkii uu iska daayo, waxaa ku dhici kara in markaasi meeshii xanuunka uu ka dareemayay ee qumanka ah ay ku sameysmanto malax oo bakteeriyadii ay sii faafto. sidoo kale waxaa ku sameysmi karta in haddii uu xanuunkii qofkii weli hayo qaliinkiina uu iska baajiyo in bakteeriyadii ay kusii faafto meelo kale oo ka baxsan qumanka, sida bakteeriyada inay kusii faafto lafaha oo qofkii inuu isku arko xanuunada waaweyn sida rheumatic fever xanuunka la yiraahdo oo dhanka lafaha ah. sidoo kale bakteeriyada inay kusii faafto xagga wadnaha iyo sidoo kale kaliyaha. haddaba waxaa muhiim ah qofka haddii uu daawada waxba iskaga dareemi waayo inuu markaasi sameeyo qaliinka. qaliinkan ma ahan qaliin dhib badan oo qaliin waxaway aad iyo aad u fudud, jirkana wax dhibaato uma geysanayo qofka haddii laga saaro qumanka. sidoo kale waxaa muhiim ah qofka haddii daawada uu u qaatay sidii saxda ahayd daawadiina uusan waxba ay ka tari weyday inuu markaasi dhakhtarka uu la xiriiro una sheego daawadu inaysan waxba u tarin si dhakhtarkii uu xilli hore uu ugu helo xalka labaad oo ah xagga qaliinka. waxaan kula talinayaa qof walba oo caabuqan qumanka uu ku daba dheeraaday waqti badanna uu haystay dhib badanna uu ku hayo daawadiina ay wax ka tari weyday in markaasi uu sameeyo qaliinkaasoo ah mid aad u fudud qofkana aan wax dhibaato u geysanin haddii qaliinkaasi maro, bal uu xanuunkaba ka caafimaadayo oo dib dambana xanuunka uusan isuga arkayn. haddaba sidee isaga yareyn kartaa xanuunkani adiga oo jooga gurigaaga? haddii uu xanuunkan ku hayo waxaa jira waxyaabo yaryar oo sameyn kartid adigoo gurigaaga jooga adoo daawadaada qaadanaya. waxyaabahana waxay kusii noqon karaan kaalmaati oo waxay kaa caawinayaan sidoo kale in xanuunkii aad ka bogsatid. kow waa inaad cabtaa biyo fara badan aad cabtaa. laba waa inaad qaadataa nasniino fara badan. saddex waa inaad ku luqluqataa biyo diiran oo aan aad u kululeyn oo cusbo yar leh maalintii ilaa dhowr jeer inaad ku luqluqataa oo ilaa aad sii gaarsiisaa dhuunta qaybta hoose si markaasi aad bakteeriyada meesha ka jirtana ay u dilanto adigana xanuunka uu kaaga yaraado. afar inaad cabtid shaah kulul oo lagu daray qaado malab ah. shan haddii aad tahay dadka caba sigaarka, shiishada iyo dhammaan mukhaadaraadkan inaad ka dheeraatid. lix sidoo kale inaad ka dheeraatid waxyaabaha qabowga zaa'idka ah leh cunooyinka qabqabow ama cabitaanada qabow, waxyaabaha barafka iyo jalaatada ka samaysan inaad ka fogaatid. haddaba sidee looga hortagi karaa caabuqani intuusan kugu dhicinba ka hor? sidee uga hortagi kartaa? marka koowaad waa inaad ka dheeraataa dadka qaba xanuunkani, sababtoo ah xanuunkani qof qaba hadduu agtaada imaado ama hadduu agtaada ku qofaco kale waad ka qaadi kartaa. sidoo kale marka aad qofacaysid ama haddii qof xanuunkana qaba uu agtaada ku qofaco waa inaad markaasi xoogaa aad masaafo fiican kasii dheeraataa. sidoo kale waa inaad iska dhaqdid gacmaha haddii aad la kulantid qof qaba xanuunkani qumanka, sababtoo ah jeermiska si fudud ayaa laisku qaadsiin karaa. sidoo kale haddii aad tahay dadka isticmaala shiishada ama sigaarkana waa inaad iska joojisid, sababtoo ah qiiqaas badan wuxuu kicin karaa inay bakteeriyada markaasi ay kugu sii faafto xanuunkiina oo markaasi meelo badan sii gaaro. ugu dambeyn haddii aad adiguba qabtid caabuqan qumanka waqtiyada uu kugu kacsan yahay qumanka ha ku qufacin hana ku hindhisin meelaha dadku ay ku badan yihiin. qaalkiintasaana kusoo gabagabeynayna. haddii aad waxun ka faa'iiday la socda asxaabta una sii shargare. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir. haddii aad horey noola joogteen laagta nagu dhiirigeli. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.